السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان داودياشينا قيمها iyo qaayaha naga mudan ee nala socda barteena YouTube-ka ee Teacher Ukash Online Academy iyo waliba baraheena Facebook iyo TikTok-ga ee Teacher Ukash markale waxaad ku soo dhawaataan course-keeni ahaa New Concept English bogiisa koowaad ee First Things First Lesson 23 maanta waxaan qaban doonaa cashirkii 23aad ee course-keena waxaan filayaa 22 cashar hore inaad soo daawatay oo aadna markaasi si wacan aad u soo fahantay haddii ay jiraan su'aalo ku saabsan casharadaasna waad ina soo weydiin kartaa aan gudaha u galno cashirkeena maanta waxaa markaas uu sheekeysanaya booska iyo Bob iyo gabarka la yiraahdo markaasi Pamela. Booska ayaa markaasi hadalka bilaabay wuxuu leeyahay can you come here ma imaan kartaa halkani a minute hal daqiiqa ma ka imaan kartaa halkani please fadlan Bobo can you come here a minute please hal daqiiqa miigu imaan kartaa halkani ama ma imaan kartaa halkani fadlan Bob ayaa hadalka qaatay wuxuu leeyahay yes sir ha mudane the bosskii hadal qaatay wuxuu leeyahay where is Pamela away Bob ayaa hadalka qaatay wuxuu leeyahay she's next door waxay markaasi joogtaa albaabka xiga she is in her office waxayna ku jirtaa markaasi xafiiskeeda sir mudane the bosski ayaa hadalka qaatay wuxuu leeyahay can she type this letter for me miisoo qori kartaa warqadani aniga ask her please isoo weydii fadlan Bob ayaa hadalka qaatay wuxuu leeyahay yes sir hay mudane Bob ayaa markaasi baxay wuxuu u tagay markaasi gabadhi wuxuu leeyahay can you type this letter for the post please fadlan muu qori kartaa warqadani booska Pamela ayaa hadal qaatay waxay leedahay yes of course ha dabcan I can waan qori karaa Bob ayaa hadal qaatay wuxuu leeyahay here you are hoo qaado Pamela ayaa hadalka ku booday waxay leedahay thank you waad mahadsan tahay Bobo Pamela ayaa iska markiidana markaasi hadal qaatay waxay leedahay Bobo waa amazing means macna wax la yaabay markaas aragtay Bobska markii orda markuu wuxuu leeyahay yes what's the matter maxaa dhacay Pamela ayaa hal qaadatay waxay tiri markaasi I can't type this letter ma qori karo warqadani Pamela ayaa hadalkii waxay leedahay I can't read it ma akhrin karo warqada the boss's handwriting booska fartiisa oo markaas uu gacanta ku soo qoray is tribal waa mid markaasi laga cabsado waxaan filayaa inaad markaasi wax badan ka faa'iiday cashirkani waxaan si sharaf leh kaaga codsanayaa inaad markaasi muuqaalka like inoo saartid aadna u sheegis asxaabtaada si aynu meel fog u gaarno haddii aad ka mid tahayna asxaabta naga cusub waxaan si sharaf leh kaaga codsanayaa inaad markaasi subscribe inoo saartid si aynu markaasi u gaarno 2000 ee markaasi nagu soo foodleh waxaan idinka tegayaa intaan ka kulmi doono cashirkiisa xiga sidaas iyo nabadino wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh